waxaan bilownay hadda in dib habeyn lagu sameeyo ciidamada qalabka sida taliyayaasha waxaan ka codsanay in askari walba la diiwaan geliyo mushaarkiisa markii suulka gacanta loo saaray kadib loogu rido bangiga si toos ah askari walba oo la diiwaan geliyeyna inuu ahaado askari jooga meeshii loogu talagalay inuu ka shaqeeyo waxaan rabaa askari walba oo Soomaaliyeed oo imaqlaaya inuu maqlo dib habeynta aan ku bilownay ciidamada in lagu sameeyo shaqaalaha waa lagu soo sameeyay sababta aan ciidamada ugu sameynayna waxay tahay haddii aan ciidankana dib habeyn lagu sameyn boqolaalka milyan haddaanay toos idinka idiin soo gaarin adduunyadu ma aaminayso waxaan rabaa marka inaan u sheego askari walba oo Soomaaliyeed oo taagan qoraxda ama taagan meesha banaanka furunta oo dagaalamaya hadda inay annaga waajib nagu tahay bishu marka ay dhamaato xuquuqdiisa inuu helo laakiin waxaan la aqbalayn inaad xuquuq ka qaadato dawladda Soomaaliya oo aad hotel waardiye ka tahay ama adeerka aad waardiyeyso ama beel lagu soo qoray ama kan email ee jirto dhaqankaas uu ka soo dhamaaday inta aniga dalkan ra'iisul wasaare aan ka ahay sarkaalku waa indhaha ciidanka waa bilowga dawladnimada iyo madaxda idinka ah marka tusaalihii iyo iftiinkii sababta ay muhiim u tahay marka inaad idinku muujisaan inaad tihiin hormuudka dalka waa sidaas awgeed waa soo dadaasheen shaqo badan baad soo qabateen laakiin waxaad saldhig u tihiin ciidan Soomaaliyeed oo la rabo inay soo celiyaan mustaqbalka iftiinka iyo iftiinka ummadda Soomaaliyeed oo aan jabhad iyo qabiil iyo dan gaar ahba lagu soo celin karin waa laga soo quustay ku dhawaad 30